waqtigaas marka waxaa laga yaabaa inuu isaga isleeyahay xoogaa wax ku darsashadaas marka waxay keeni doontaa fawdo siyaasadeed oo mar kale deegaanada koonfur galbeed ka dhacda. iyo dhegeystayaasheena meel kastoo aad nagala socotaan halkan waa goobjoog kusoo dhawaada barnaamijka madasha oo ah dood toddobaadkiiba mar aynu ku falanqayno arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, bani aadamnimada, xaaladaha jira ee ku saabsan dalkeena iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed. barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu diiradda ku saareynaa sida aan wada ognahay muddo bilooyin ah ayaa ka harsan waqtiga loo asteeyay in la qabto doorashada maamulka koonfur galbeed oo ay tahay in ay dhacdo waliba waa doorashada madaxweynaha iyo tan xildhibaanada. waxaan rabaa bal in aanu eegno koonfur galbeed waxyaabaha loo arki karo in ay yihiin caqabado ku gadaaman iyo sida xalkoodu uu noqon karo. koonfur galbeed sidee ayuu ku noqon karaa maamulkaas maamul dadka saddexda gobol degan ay ku diirsadaan adeegyadiisa uu soo gaaro. waxaasoo dhan ayaanu fiirin doonaa. marka ugu dambeysana waxaanu eegi doonaa bal xalka waxa uu yahay. waxaa barnaamijkeena marti noogu ah oo aan ku casuulnay uga mahad celinaynaa in ay waqtigoodii u hureen oo ay ogolaadeen oo soo ajiibeen in ay nala fariistaan xildhibaan xasan maxamed guudow iyo sidoo kale ugaas xasan cabdi maxamed oo ah wasiirkii warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed iyo maxamed ibraahim bilaal oo ah nin siyaasadda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed aad u falanqeeya la socda dhiraandhiriya. marka hore martida waxaan leeyahay soo dhawaada. anigu waa Aways Xaaji Nuur Aways Ar oo barnaamijka idinla socodsiin doona. waxaan rabaa inaan ku bilaabo maxamed ibraahim bilaal oo aan weydiiyo bal xaaladda koonfur galbeed iyo doorashadan la filaayo waxa laga filaayo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحبه أجمعين. وما سنت أويس doorashada koonfur galbeed oo la filayo waxay noqon doontaa doorashada ugu horeysa oo qabsoonta doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee dowladda federaalka kadib. saas weligeedna saas ay ahayd. koonfur galbeed waxay tahay meelaha ugu horeeya maamul goboleedyada doorashada ka bilaabata weeyaan. haddana waxay noqon doontaa maamulka ugu horeeya uu doorashada ka bilowdo mar haddii la doortay madaxweynihii federaalka iyo dowladdii dhexe. marka doorashada koonfur galbeed waxyaalo badan ayaa ku gadaaman, caqabado fara badan. qaarkood waqtigaa xalliyey oo waxay xiriir la lahaayeen dowladdii hore oo joogtay maxamed farmaajo oo maaragtay dowladdaas siday u fikiraysay iyo qaabkay u shaqaynaysay waxyaalo badan asagay la tageen. مثلا waxaa ka mid ah haddaan soo koobo caburintii siyaasiyiinta, dabagalkii siyaasiyiinta, xadididda iyo ka hortagga siyaasadda iyo siyaasiyiinta dhaqaaqooda aad loo ilaalinayay. taasi marka waa siyaasad ay ku socotay ama base u ahayd dowladdii maxamed farmaajo. marka xalka taas waxaa weeyaan waqtigaa xalliyey. dowladda markay baxday qaybahaas oo dhan way xalismeen oo hadda u malayn maayo koonfur galbeed inay keligeed ka jiri karto meel saxaafadda lagu caburiyo, meel siyaasiyiinta lagula diriro, meel maaragtay afkaarta dadka ka afkaarta duwan dowladda markaas jirta lagu xabiso ma noqon karto. maxaa yeelay ceelkii weynaa wadaanta ay ka dhaansan jireen ceelkaasi waa guray. ceel fiican oo caafimaad qabo biyo macaan ka soo baxayaan ayaa yimid. midda hartay marka waxay tahay inta maamulkii koonfur galbeed uu gaarka la ahaa. taasi marka waxaa weeyaan iyadan haddaan soo koobo waxay noqonaysaa in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ama waqtigiisa uu dhow yahay ee koonfur galbeed inuu isku ogolaado in xilli waqtigiisa uu dhammaaday. maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay in hal sano dheeraada baarlamaanka ugu daray. taasina mid saxa ma aha, sharcina ma aha marka la raaco dastuurka koonfur galbeed iyo markii la raaco maxay ahaydtay wixii la isku ogaa. leanna 4 sano walba reer koonfur galbeed waxa u yaala xeer iyo qaanuun. madaxweynaha markaa jooga madax xanuun ayaa lagu ridaa oo doorashaa la qabtaa. oo madaxweynihii ka horreeyay Shariif Xasan saasaa dhacday. marka Cabdicasiisna waa inuu u diyaar garooba marka waqtigaas. marka waxaa laga yaabaa inuu isaga isleeyahay xoogaa wax ku darsashadaas marka waxay keeni doontaa fawdo siyaasadeed oo mar kale deegaanada koonfur galbeed ka dhacda. taas weli gaar ay u tahay. waxaa kaloo gaar u ah oo laga yaabaa inay dhacdo in uu isagii hay-adihii dastuuriga ahaa sida baarlamaankii iyo golayaashii sharciga ahaa
maadaama guddoomiyihii baarlamaanka uu ku biiray federaalkii gudoomiye baarlamaan ma laha koonfur galbeed ilaa iyo dhowr iyo 10 wasiir oo badankoodna xildhibaano ay ahaayeen ayaa waxay ku biireen federaalkii waxaa kaloo federaalkii ku biiray gudoomiyihii gobolka Baay taliyihii qaybta 6aad marka institutionkii oo koonfur galbeed waa dhaawacan yahay marka sidaasna hadda doorasho laguma geli karo marka waxaa laga rabaa lafta gareen waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inuu systemkii meelihii banaanaa buuxiyo golihii wasiirada uu buuxiyo hay'adihii amniga uu xoojiyo uu dhiso maxay ahayd gudoomiye baarlamaan la doorto kadib baarlamaankii oo hadda fasax ku maqan waana koonfur galbeed waa la fasaxay in baarlamaankii dib loogu yeero kadibna laga shaqeeyo qorshihii doorasho lagu geli lahaa waxaan rabaa ugaas xasan cabdi maxamed oo ahaa wasiirkii warfaafinta ee koonfur galbeed doorashadii tan ka horeysay may doorashadan oo Cabdicasiis lafta gareen uu ku soo baxay waxaa dhacay foolxumooyin badan sida aan ognahay oo aan ka warqabno maaragtay doorashadaas darteed dad u dhintay kuwa badan maaragtay u dhaawacmay qaar loo xabisay siyaasiyiin maaragtay rabay in ay doorashadii ka qayb galaan ayaa laga hor istaagay xarig iyo maaragtay xabsi ku mutaystay doorashada hadda soo socota noocee rabnaa in ay noqoto أول سؤال محسن تهاي هذيك يا أستاذ بلال يا حلوان حسن يا جوجوج أنت بوا سلام يا مركب وجوه الرئيسو ونب لبده يكون يستيد يتبنكي ديسمبر سجالي تبنكي دي بقى مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفتقرين أي دورتين برلمان كي كهري برلمان كان هذا جوجا كوفر قلب الصوماليا وطبعا أنا قبان كم بدها برلمان كي حل جالسري أو دور شدنا وحدورنا هي شككوما جيرو doorashadii koonfur galbeed ee 18 December 19 December dhacday 2018 waa jireen dhibaatooyin aad u weyn oo ka dhacay deegaanadaas waa run in dad kamid ah musharaxiintii tartamaysa xilligaas oo kamid ahaa Sheekh Mukhtaar Roobow la xiray oo asagoo shuruudihii iyo nidaamkii loo baahnaa iyo wixii uu u ogolaanayay nidaamka doorashada ama guddiga doorashada xeerarkii ay dejiyeen oo dhab soo wada buuxiyay la xiray sidoo kalena waa dhabo dhimashana waa jirtaa inkastoo dadku tirada inta badan ay isku khaldaan oo tira sax ah oo aan la haynin laakiin inay dhimasho dhacday shaki kuma jiro sidoo kalena dhaawacyo fara badan oo hadday dhinaca dhaqaalaha iyo maskaxda dadkaba doorashadaas ay ka soo gaareen dhibaatooyin aad u badan hase yeeshee anigu markaas waxaan ka mid ahaa xildhibaanada iyo wasiiradii markaas shaqaynayay culayska ugu badanna wuxuu ku dhacay markaas hogaankii ku meel gaarka ahaa oo markuu Shariif Xasan baxay gudoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo hadda wasiirka dowladda federaalka Abdiqaadir Shariif Shaquna May ayaa si ku meel gaara Shariif Xasan markuu tagay xilka uu ku wareejiyay marka maadaama aan xubnihii dowladda ama golihii wasiiradan ka mid ahaa waxaan goobjoog u ahaa waxa la wixii deegaankaas ka dhacay mas'uuliyad aad u culusna wayna saarneed xilli kala guur oo khatarna waa lagu jiray anagu mas'uuliyadana saarneed waxa weeye inaan xilligaas transition oo kala guurka dowladnimadu aysan dhaawac kastoo soo gaaraba aysan hakanin aan bal hello cid mas'uuliyadaas loo tiirin lahaa baarlamaanku waxbay dooranayeen ayagu in qof la xiro iyo in qof la fasaxo xaq uma lahayn laakiin waxa xaq u lahayn ayagu inay cidi timaado oo processka soo martaa la doorto meeshaas Cabdicasiis lagu soo doortay anagoo dhinac kalena og in la xiray Sheekh Mukhtaar qalaasooyin badan ay dhaceen laakiin dowladnimadeena dhanaaba soo ka kabanayso shaki kuma jiro tan federaalka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda marka qaabka armasay way iyada lafteeda iyo madaxweynihii hore hadda tagay farmaajo intii la isjiidjiidayay hata dhimasha jirtay dhaawac ayaa jiray dhibaatooyin badan baa jiray marka ta koonfur galbeedna xilligaas noocaas ay ahayd waxaan isleeyahay marka annagoo ka faa'iideysanayno oo muddo xileedyadii Shariif Xasan markii la dooranayay aweyso ma jirin baarlamaan waxa wax soo doortay ergo 735 xubnood oo ka kala yimid gobolada Shabeellada Hoose iyo Boqol sanad kadib uu Shariif Xasan keenay baarlamaankii doortay Cabdicasiis Laftagareen annagoo marka ka duulayno oo aasaaskii koonfur galbeed sidii ay ahayd iyo wareegii labaad oo Cabdicasiis uu asna madaxweynaha meesha ka noqday waxyaabihii dhacay waxaan la rabnaa koonfur galbeed in waxaas oo dhan ay noqdaan tusaalooyin nool oo laga tusaale qaadan karo oo wax la isaga sixi karo marka waa isleeyahay in caqabado way iska jiri karaan laakiin dadka reer koonfur galbeed iyo mas'uuliyiintooda iyo siyaasiyiintooda iyo way aragoodu intuba tusaalooyin fiican bay soo arkeen inay doorasho wanaagsan qaban doonaan haddii alla idmo wax hadii hogaanka hadda jooga madaxweynaha uu diyaariyaa process
doorasho u ego dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ka wada qayb geli karaan. Process oo fiican hal diyaariyo ma xuma, laakiin processka fiican waa noocee oo dadka reer koonfur galbeed ay rabaan. horta wax dooranayo maaha shacab 95 mudane oo xildhibaan golaha wakiilada laakiin shacabka qaabkee u rabaan doorashada in loo diyaariyo. ma waxaan rabaa inaan kala qaado rabitaanka shacabka iyo cidda wax dooranayso. shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba maaha koonfur galbeed oo kaliya waxay rabaan in dalka xorriyadii dalka uu xor noqdo, shabaab iyo cadowga laga saaro, kadibna qofka Soomaaliga meel walba ku nool yahay Ras Kambori ilaa iyo Lowyaade uu codkiisa ku ciilbaxo cidda uu rabo mas'uuliyadda deegaanka degmada gobolka iyo heer dawlad goboleed iyo heer federaalba uu ku aamini karo inuu heli lahaa jeclaan lahaa shacabka Soomaaliyeed. dadka reer koonfur galbeed shacabkuna sidoo kale taasay jeclaan lahayn, laakiin waxa ay muuqato maadaama ay doorasho qof iyo coda aysan state-kaas ka qabsoomaynin, cidda dee xambaaraysa mas'uuliyadda intaa la eg oo dee codka shacabka iyo aragtida shacabka xambaarsan waa xildhibaanada 95 xubnooda oo hadda u joogo oo aan rajeynayno dabayaaqada sanadkan inay dooran doonaan madaxweynihii saddexaad ee koonfur galbeed Soomaaliya. marka fariimaha shacabka ay xambaarsan yihiin xildhibaan walbana qoys iyo reer iyo deegaan meel buu ka yimid, wuu yaqaana waxa deegaankiisa, tuuladiisa, degmadiisa iyo koonfur galbeed oo dhanba masaalixdeeda, horumarkeeda, amnigeeda, dhaqaaleeda uu ku jiro. marka xildhibaanadaas xambaarsan marka way dhageysan doonaan oo waa ay fahmi doonaan, waana la talin doonaa inkastoo hadda anagu aan xildhibaano ahayn inay dhacdo meeshaas doorasho fiican oo dadka reer koonfur galbeed dee cid kastoo danaynayso inay meeshaas mas'uuliyaddeeda qabato la isugu yimaado, dee aysan dhicin wixii 2018 dhacay, la helo doorasho ugu yaraan wanaagsan oo ka fiican tii hore loo wada tartami karo, ciddii guulaysataana loogu hambaliyeyn doono mas'uuliyadda haddii alla. isla su-aashaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaan xasan maxamed gudow, dadka reer koonfur galbeed doorashada ay rabi lahaayeen maaragtay sanadkan in ay qabsoonto doorasho noocee ah waaye. tii hore haddii aan u laabanno waxay ahayd doorasho dowladda federaalka ah qof ay wadatay maaragtay intay wadada u xaartay meesha dhex geysay kabacdina ikhtiyaar kale uusan jirin oo ninkaas la doortay. sidaas ma rabnaa, si kale oo ka duwan ma rabnaa, sida kale ka duwan haddii aan rabnana noocee waaye. bismillah alxamdulilah wakafa. aways adiga iyo bahda goobjoog aada u mahadsantihiin, ustaadka iyo wasiirka ayaduna waa maartay yani u mahadcelina. markaan u gudgalo su-aashaadii maamul koonfur galbeed waa sida ay sheegeen maxay ahayd oo ustaadka iyo wasiirka dabayaaqadii 2018 iyaa la doortay. aafooyin badanaa meesha ka dhacay, dadaa u xiran, dadaa maartay yani xabsiyo lagu guray oo xorriyadoodii waaye, dadaa maartay naftooda waaye qabriga ugu jiro, dadaa ku dhaawacmay oo dhaawac u ah. nidaamkaasi oo dhan ninka la doortay oo hadda madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa la rabay in maartay yani nidaam la imaado, dib u heshiisiin dadkii maartay yani meesha wax ku gaareen lagula hor fariisto, lala imaado wax ka duwan nidaamka hadda lagu dhamo oo ah nidaam maartay yani kasoo horjeedo dowladnimada, nidaam anaa yiri kalitaris ah oo run ahaantii aanan fiicnayn. reer koonfur galbeedna ma mudna in lagula dhaqmo wax aan ahayn anaa sameeyey. waxay mudan yihiin waa dad dowladnimada jecel waaye in maartay lasu soo dhaweeyo, lasu keeno, la maslaxo. marka wixii dhacay waagaasi aafooyin badanaa ka dambeeyey oo xitaa markuu guuleystay wixii laga filaya aan ahayn way soo socotay. maantay joogtaa 5 bilood iyo waxaa u dhiman 19 maalmood. doorashada waxaan rajaynaynaa min shacab billah iyo mas-uul innaga maarta haddaan matalayno oo shacabka koonfur galbeed waxa ay noo soo jeedinayaan aragtiyada iyo fikradooda waxay tahay doorashada inay dhacdo qabsoonto waqtigeedii oo 19 December si nabdoon oo aan maartay yani ku jirin dhibaato iyo naga tag iyo maartay aan ku jirin tuuryo. Cabdicasiis waqtigiisa waa dhamaaday, wuu tartamaa, doorashadaas uu qabanaa, uu ka shaqeyn waaye. waxaa rabnaa baarlamaanka inuu fariisto maartay yani soo saaro nidaamkii iyo maartay yani lagu qaban lahaa doorashada. fariimaha shacabkana waa bayoor waaye, doorashay rabaan, doorashada la qabto, waqtigeedii lagu qabto, si sax loo qabto, ilaahay maartay calfa qofkii ku guuleystay meeshana lala shaqeeyo. hadii la yiraahdo sharxiin badanaa jiraan oo yani meesha wax ka rajeynayaan, intooda maartay waan fiirinaynaa
waa dhegaysanaynaa qofkii qofka aan u aragno alla ilaahay koonfur galbeed ama teli karaa 4 sano soo socdo aan u dooranaynaa biidni illaahi tacaala waxna waa wax kaleer ah waay oo cad oo maxay ahayd oo aan yacni in doorasho labada rabana waa maaragtay oo cad ah waay maxamed ibraahim bilaal nidaamka koonfur galbeed doorashadiisa waxoogaa wuu ka duwan yahay maamulada kale iyo xitaa tan federaalka ah maxaa yeelay xildhibaanada in la doorto waxaa ka horeeya madaxweynaha in la doorto kabacdi madaxweynihiioo jooga ayaa doorashada xildhibaanada la go'aaminaya madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay marka saameyn aad u maaragtay dhankiisa u fiican oo asaga u roon ayuu ku leeyahay taas caqabadaha jira ee ku gadaaman maaragtay doorashada koonfur galbeed qayb ma ka tahay mise waa wax habboon oo aad u fiican oon uga horeyno haddaan nahay reer koonfur galbeed maamulada kale aweys waa mahadsan tahay horta midda ku saabsan in hal sano uu baarlamaanka uu mar walba dheer yahay madaxtooyada waa jirtaa waana hadda waxaa malay wasiirka inuu sheegay maxaa yeele markii ugu horreysay koonfur galbeed la aasaasayey ayaa waxaa samaysay waxaa doorashada waxaa qabtay waxay ahaayeen odayaal iyo ergo iyo dad badan lasoo xulay oo mujtamaca ka yimid ayaa madaxweynihii waqtigaas ee koowaad shariif xasan doortay marka dowladdii madaxweyne shariif xasana waxay markaa dib ka yagaleeshay ay abuurtay ay unkutay baarlamaankii koowaad oo koonfur galbeed marka hal sano kadib ayuuna dhaqan galay marka halka sano gaabka u jeeda horta meeshaas ka soo jeedaa midaas waa midaas marka in la saxmo u baahan tahay mise sidana ku fiican tahay waa mas'alo kale doodeeda u baahan anugu laakiin waxaa ila fiican hadda waa la saxa haddii la dhaho midda cabdicasiis uu ku doodayo uu leeyahay aniga iyo baarlamaanka waa isla dhammaysanaynaa yani hal sanaan ku darsaday halkaas sana baarlamaanka isla dhamaysay doodiisa taasay ku salaysantay xildhibaanada say u badan yihiin iyo madaxda mucaaradka iyo shacabka koonfur galbeed waxay leeyihiin adeer halkaas 4 sano waa kuu dhammaatay doorasho qabo marka isaga waxa uu ka danleeyay marka waxay tahay inuu xildhibaanadan ilbaxay oo 4 sano soo joogay oo dhaliilihiisana soo arkay markay dhammaadaan inuu kuwa cusub oo asaga marka uu soo qorto intuu keensado oo asaga dib u doortaan rajaha ku jirta xildhibaanadan marka hadda xoogaa ma ogtahay waa ilbaxeen 3 sano ay joogaan xasan iyo tiimkiisa sanadka afraad u bilaaban rabta marka ninkan khaladaadkiisana waa arkeen jawigiina waa fahmeen marka wuxuu ka cabsanaya inay dooran waayaan cabsi aha ku jirta marka dagaalkiisa wuxuu ku qotaa marka wuxuu leeyahay kuwa cusub aniga aan soo qoranayo ilaan hadda weli dadkiina shacabka wax soo doortaan lama gaarin odayaashii wixii u maraa sida haddaba baarlamaanka federaalka soo yeel waa ka warhaysaa qabiilo dhan uu qadiyey hadda reer gandarsho dhan waa malaha waa ka warhaysaa marka wax noocaas rabo inuu haddana mar kale inuu malmaluuqo laakiin difaaca loogu jiraa lagama yeelayo difaaca waxaa leeyahay doorashada hal sana ku harsan 6 bilood ku harsan doorashada qaba shariif xasan sidaas ku qabo marka haddii halkan sana la dhaafayo waxaa ka horeeya in dastuurka iyo xeerka koonfur galbeed in baarlamaanka fariisto la furo qodob dastuuriya jira oo dhahaya madaxweyne walba koonfur galbeed muddo xileedkiisa waa 4 sano haddii marka qodobkaas waxa laga bedelaa waa in baarlamaanka intuu fariisto dastuurkii la furo la suwaafka dastuurkii dib loo furo qodobadaas xitaa lagu sameeyo markaas kadib ay dood cabdicasiis imaan karta hadda laakiin ma imaan karta leen baarlamaankii dastuurkii ilaa hadda waxaa noogu qoran muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed waa 4 sano marka 4taas Allah kugu anfacan leena doorasho u diyaar garow midaas waa mid hal mid kala jirta aweys midda jirta waxay tahay iyadana muhiimka koonfur galbeed sax waaye laba madaxweynaha soo martay dadka shacabka caadiga ah iyo aqoon-yahanada iyo dadka waxgalka waxbay tabanayaan dowladda federaalka eedayna waxay leeyihiin mar walba qofay soo diyaarsadaan korka naga saarayaan anaga ilaa hadda wixii federaalka loo sameeyay sidaas ma ahayn waxay ahayd in bahalkii maamulkii xukunkii la daadajiyo oo dadka ay wax maartay at least dadka dad ay rabaan marka xataa baarlamaanka koonfur galbeed fursad lama siinaa baarlamaan la cabsi geliyay oo kii ugu dambeeyay baarlamaankooda la soo qaaday inta la keenay waa ogta Fahdi Yaasiin farmaajo diyaarada ku soo qaadeen baarlamaan diyaarada lagu soo qaaday dhow laga soo xamar la keenay hotel doorbin la dejiyay la cabsi geliyay lacag la siiyay khawfan warahaban la iskugu daray cabsi gelin iyo rajeeta la iskugu daray la yiri maartay laabta la dhahay ahayd ma ogtahay scenario noocaas marka waa ka digayaan reer koonfur galbeed marka in madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa inuu shacabka koonfur galbeed u madax baneeyo ciday wax u dhiibanayaan anaga siyaasiyiinta daan ahayn midaasan ololo ugu jirnaa waafaqsanahay waxaan rabaa ugaas xasan cabdi maxamed inaan weydiiyo waqtiga haray waa wax aad u yar 5 bilood waaye 5 bilood oo weli cabdicasiis lafta gareen oo hadda laga sheeganayo oo la leeyahay waxbuu jujuubay waxbuu jujuubaa wuu cadaadiyaa la leeyahay
oo dadkii maaragtay siyaasiyiinta meeshaas uu damac uga jirana ay banaanka ka joogaan oo xamar iyo meelo kale ay joogaan sidee suurtagal ku tahay haddii hadda lagu qasbo in 5 bilood doorasho qaba la dhaho inay doorashadu noqoto mid hufan oo dadkan hadda adinku laftirkiina aad ka mid tihiin oo xamar iska jooga inaad meesha ku laaban kartaan oo aad olole la samayn karo oo doorashadiisi maaragtay is ogol ah lagu qaban karo sidee ku suurtagelay macnaa waqtiga waa su'aal fiican horta deegaanka cidna nagama soo eriyeenin laakiin de duruufaha jiro qaarkood baa ninka siyaasiga waxay ku kalifayaan hadba jawiga iyo waqtiga inuu la socdo doorashadana cidda wax dooranayso horeen kuugu sheegay waa 95 xubnood oo xildhibaanada koonfur galbeed marka uma baahno wax campaign badan loo galaayo uma baahno wax u baahan ololo badan waa xildhibaano deegaanka joogo oo la yaqaano hayb ahaan reer ahaan ay meesha ka soo jeedaan dadka deegaankaas u tartamayo madaxtinimada rabana kulli de qof walbo nin matalaya yaa ugu jira meesha oo waa la yaqaanaa waxaan aaminsanahay bil kaliya lagu qaban karaa wax macno weyn oo ku fadhiyo ama justification loo sameyn karo inaan doorasho 5 bilood 6 bilood ugu qabanaynin ma jirto haddii dee caqabado kale oo ay abuurayaan maamulka meesha ka jira aysan imaan doonin waa ku kalsoonahay waa waqti aad u badan muddo 6 bilood ilaa 5 bilood u hadhay waqtiga rasmiga ah oo dastuurka uu siiyey muddo bila gudaheedana waa lagu diyaarin karaa musharaxiintu waa tagi karaan deegaanka xildhibaanaduna waa maalin iyo laba kaliya in sidii wax loo doorto ay la baro de horena wax waa usoo doorteen oo guddoonkoodii bay doorteen sidii wax loo doorto way yaqaanaan intooda badanna waa aqoon-yahano waa dareensannahay inay yihiin rag ku filan inay shaqadaas sidii ay ahayd ay u gutaan marka deegaanka waa aadi doonaa musharaxiin badan oo haddaba baydhabo joogo iyo kuwo kaloo dee xamar iyo adduunyada dacaladeeda joogo imaan doono deegaanka aadi doonaa imaan doono dee inta aan doorashada la gelina ka hor dee doorasha nidaamkeeda waa la yaqaanaa waxay leedahay diyaar garow waxay leedahay in loo magacaabo guddi heer baarlamaani ah processkaasoo dhan ba cidda la rabo inay diyaariso waa maamulka meesha ka jiro oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo guddoonka golaha baarlamaanka inkastoo dee baarlamaankiiba uu fadhiid yahay oo waayahan uusan bashaqo lahayn oo iska fadhiyo fasaxwade aan loo baahnayn 2 bilood 3 bilood la iska geliyo laakiin annagu ka siyaasi ahaan waxaan ku kalsoonahay inay doorashadu qabsoomi karto sabab maanta doorashadaas ay u baaqan kartana nooma muuqata ama musiibooyin ma dhibaatooyin waaweyn oo de ilaahay hanaga qabtay waddada kusoo jiroon annaga ogeen hadday timaada waa yeelkeeda laakiin ma ogin sabab kaloo doorashada dib lagu dhigayo waa ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad koonfur galbeed waxaa halkeedu uu ku jiraa in la helo doorasho hufan aan la isku dilaynin la isku dhaawacaynin la isku xiraynin la isku barakicinaynin dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dhan ba ay u wada siman yihiin loo wada tartami karo ciddii dee guulaysataana loo wada sacabtumi karo oo la oran karo garabkaaga la galo annaguna ku garab taagan anagu koonfur galbeed sidaasaan la rabnaa ma rabno koonfur galbeed 2018 Soomaalidana caan ka noqoto adduunyadana wixii ka dhacay aadka loo ogaa inay mar laba dib noogu soo laabato waa aragnimo nagu filan iyo biseel siyaasadeed aad u waaweyn dadka reer koonfur galbeed iyo xildhibaanadeena siyaasiyiinta oo dhan baan qabnaa marka colaad ma jirto cunfi kalena ma wadno madaxweynuhu mandate buu leeyahay 4 sano dastuurkeena tilmaamaya 4 sano markuu dhamaysto inuu doorasho diyaariya haddii dadka reer koonfur galbeed xildhibaanadu ay gartaan oo yiraahdaan waad mudan tahay madaxweyne mar labaad hogaamina diidi mayso u ducaynaynaa haddii ay yiraahdaan maya kugu filan intaana ciddii kaloo la doortaan yaa lala shaqayn doonaa qofku yahay de ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaan karo marka waxaan rabnaa koonfur galbeed oo nabada dadkeedu way heshiis yihiin siyaasiyiintu way heshiiskooda yihiin si doorashada u dhacayso dhibaato kale aysan ka dhacaynin fargelin siyaasadeed oo dhinacyo badanna ka imaanaysana natiijada ay dhasha waa ogaano waa meel aad u xasaasiyad badan koonfur galbeed Soomaaliya waxaan aaminsannahay koonfur galbeed inay tahay ubuucda dowladnimada Soomaaliyeed walow ay dowlad goboleedyo badan jiraan waa meel muhiim oo istaraatiiji u ah dowlad dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed marka wanaagaasan koonfur galbeed u rajaynaynaa madaxweynaha iyo xildhibaanada hadda joogana waxaan ka rajaynaynaa inay haddaba u sii diyaar garoobaan inta aan waqtigaas la gaarin sida ay doorasho u qaban lahayd waxaan rabaa xildhibaan xasan koonfur galbeed marka laga hadlaayo 4 sano kasta iyo inta 4 sano lagu jiro waxaa laga badin la'yahay doorasho qabsoomideed sida u qabsoomi lahayd ayadoo hawlo kale oo dowladnimadii laga rabay ay maaragtay bannaan tahay oo iska dayacan tahay oo amniga aan waxba laga qabanin adeegyadii bulshada la bixinin waxaas oo dhibaato ah maxay tahay sababta maxay tahay oo aan doorasho looga badinayn awaysaa hore kugu sheegnay waxay ahayd oo cabdicasiis imaanshihiisa intuu maaragtay maamulkaasi yani xukumayay oo talada hay wuxuu juhdi badan ku bixiyey siduu usoo noqon lahaa rejiimkii markaas joogay oo laga guuleystay oo maxay ahayd waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore siduu kusoo noqon lahaa
yuu ku taladiisa ahay oo maaragtay yani ka shaqeynaya ma jirin nidaam maaragtay yani koonfur galbeed yani horumarkeeda iyo loogu shaqeynayo ma ku tali jirin nidaam dhaqaalihii iyo wixii loo maaragtay yani kor loogu qaadi lahaa maxay ahayd arrimaha bulshada maaragtay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo looga shaqeyn lahaa sidii maxay ahayd siyaasad degan siyaasiyiinta koonfur galbeed loola dhaqmi lahaa dib u heshiisiin reerihii iyo wixii loo ilaa iyo heer degmo tuulo loo gaarsiin lahaa nidaam ma ka jirin xagga oo dowladnimo ah keliya visionka ee lahaayana wuxuu ahaa farmaajo siduu kusoo noqon lahaa juhdiya ku bixiyeen waqti badanay geliyeen wax badanaa dayacnaa habeen hore khudbaddii oo markii uu booqanayay xasan sheekh maxamuud khudbaddii ugu dambeysay ee lagu soo sugotinayay habeen dhexdaas uu ka hadlayay cabdicasiis 14 daqiiqo khudbad soconayso wuxuu juhdi geliyey oo maaragtay yani ka hadlayay 13 daqiiqo ka mid ah abaaraha jira codsi madaxweynaha u dirsanayo oo kaga hadlaya abaaraha jira in maaragtay yani laga gurmado amni darada jirta oo maaragtay shabaab oo dhibka ku hayaan degmooyinka waajid iyo xudur iyo bakool oo maaragtay yani lagu gubayo gabaarida iyo maxay ahayd waxaasoo maaragtay yani codsiyo u dirsanaya madaxweynaha waana howlo asiga laga rabay ee u taala waay oo horena aan uga hadalnay sanad ka hor aan ku dhaliilnay oo aan sheegnay waa wixii oo maaragtay yani laga rabay howsha asiga laga rabay oo madaxweynihii asiga maaragtay yani xasan sheekh ka horeeyay oo farmaajo ah oo yani kala shaqeynaya inuu dib u soo noqdo xataa wuu garan waayey inuu codsiyo u dirsado qofku asiga maaragtay yani la shaqeynayo inuu dhaho war nala kaalaya gargaar bini-aadamnimo nala kaalaya ciidan oo maaragtay yani aan ku xureyno wadooyinka waxaasoo dhan waa waxaan kaga fadhino waa u sheegnay wixii aan ugu digeynay oo khudbadiisa soo jeediyey waana fashil oo asiga afkiisa ku cadeystay waa horaa ugu sheegnay cabdicasiis maxilkaas ma u qalantid baa dhahna iskaga deg si tartiib ah dhiiban dhahna wixii hadduu asiga cadeystayna waxaan ka sugaynay warqadiisa istiqaalada inuu raaciyo dhaho mudane madaxweyne waa ka baxsan waaye saa kuu sheegaya iga dhab ah warqadina waa iga tanaa inuu dhahaan ka sugaynay haddii uu sameyn waayey doorashaan rabnaa inaan maaragtay yani dalkaas ka qabano hadduu alla yiraahdo doorashada maaragtay haddii uu ogolaan waayo waxa ugu horeeya annaga noo horyaalo baarlamaanka hadduu furno waa inaan guddoomiye baarlamaan doorano waa guddoomiye baarlamaanaad dooranaynaa waxaan ka shaqeynaynaa nidaamkii iyo wixii maaragtay u qabsoomi lahayd doorashada magaalada baydhabo aan ku dooranayna baydhabo aan ku dooranayna dowladdu waa maaragtay yani waa ballaaran tahay yani madaxtooye kaliya maaha cabdicasiis doorashadaas asaa laga fadhiyaa qaabkay maaragtay yani ku socon lahayd hadduu ogolaan waayo baarlamaanka fariisanayo maxay ahayd waa laga shaqeynaa qaabkay ku dhici lahayd marka waay gabagabadii aan joognaa waxaan rabnaa xalka inaan fiirino maxaa xal u ah koonfur galbeed bilaal بسم الله الرحمن الرحيم حلقة وحواي حلقة هرتا وعدة حلقة وحواي سومالي هدي وحي كوه شيء لنا عمره دقالة إيمانه وحلوه شيء وحي تاي إن أفر سنة والبابا قف كي مركب مدحوينا دور شو وقفت مدحنون كاس ولين عسكقات مركب وحلوه كله بدبادي كرا وهرتا حلقة وإن دور شل قفتوا دور شيء اللي ديار قربوي haddii kale xamar waa ogeyd waxaa lagu sigtay farmaajo xilligiisii in dagaal sokay waddanka u aado dagaalkaas sokay waxaa looga badbaaday waxay doorashadii la qabtay si doonta ha noqoto doorashada ma saxnayd ma fiicnayd ma qaldanayd gaar wey laakiin doorashada waa lagu kala badbaadaa koonfur galbeedna meeshaasay la mid tahay waa in la qabtaa doorasho si loo kala badbaado haddii cabdicasiis marka wax kale isku dayo dee waxay noqonaysaa isagiiyaa wuxuu mas-uul ka noqon mashaakil cabdicasiis ماشي انتو ماشي جوغي او فلسفدي فرماجيزمكو ku dhaqmay falsafadaasna ilaahana dhaafi falsafad aad u khariban ahayd waa dhagdheer dhimatay dhulku waa nabad horta falsafadaas waa dhimatay falsafadaas waxay sheegaysay in dad xataa gaajoonayo oo madaxtooyada agteeda jooga xataa la soo booqan waxyaalaha adduunka maalmood lala yaabay oo hal mar xataa media ku baraar waxa kamid ah madaxtooyada koonfur galbeed meel u jirta wax ka yar dhowr talaabo ayaa waxaa ku dhimanayay maalin walba ku haraadsan ku gaajaysnaa dad soo barakacay oo shabaab ay ka soo barakiciyeen magaalooyinka Dinsoor qasax dheer dhulka laga soo barakiciyaa joogay 4 sano lafta gareen meesha uu joogay hal maalin muusan booqan
madaxweyne xasan sheekh markuu maalin meesha tegey ayaa maaragtay la arkayba dadkii oo adduunkii uu ku baraarugay Soomaalidan ay ku baraarugtay marka waa falsafada farmaajismka aan kuu sheegayo waayo oo dhahaysa xataa dad gaajaysan in la sawiro mamnuuciisa wey يعني صحافتي اللي عنا قبتي سياسيين اللي عنا قبتي أركتي كلا دولين اللي عنا قبتي تاسع مركز كونفور قلبي وحي يكون ردي بابا أو أفرتي سنة هذا واجي شريف حسن ماله وحسو جالسي هنتي يعني وعيد مركز إن أفرتان سنة لقى شقيه إن شاء الله الدور كيلو كي لقى نظيف فيه مدحتويدي كونفور قلبي وبراوي ما هبين أبو تلو كوميلجان إلا صار براو ولا كيانو maxay ahaaytay dawladii baraaw u soo guurto madaxtooyadeedii meesha lagu shaqeeyo xukunkii la daadajiyo ilaa maartay deegaanada maartay shabeellada hoose oo la keeno ayay ahayd wixii oo dhan laga ma shaqeeynin bas sidoo hadda xilwaanka sheegay wuxuu ka shaqeynayay bis farmaajo waa inaan soo ceshadaa si boqortooyadan oo asaga oo dadku ku dulminayo baydhabo ku haysto si ay ugu sii jirto taana mar waa dhici weyse marka xalka waxa waaye oo reer koonfur galbeed ay ku kala badbaadayaan waa in doorasho la waay hal daqiiqo waxaan soo koobaya maaragtay ugaas xasan xalka reer koonfur galbeed maxaa ku daray waa maasan tahay aweyso horta xalka reer koonfur galbeed mar walba wuxuu qayb ka yahay xalka guud ee Soomaaliya marka koonfur galbeed xalkeedu dhibaatooyin badan waa iska jiraan haday tahay abaarihii haday tahay amni xumidii haday tahay dhaqaale xumidii haday tahay kalsooni xumidii dadka 4 sano la soo dhaafay intuu farmaajo jooga dhax gashay adigu wax badanaa jiro laakiin hadda maadaama waxaan ka hadlaynaa ay tahay doorasho halka reer koonfur galbeed wuxuu ku jiraa inay doorasho nadboon oo aan la isku qalbi taabanaynin oo aan la isku dilaynin oo qofna aan midabkiisa kalarkiisa qabiilkiisa iyo reerkiisa aan lagu colaadinayn inay meesha ka dhacdo بإذن الله تعالى هذه مدحونا هذا جوجو صلى الله وإلهي وعلفنا وسودوين ودنيا هاي هذه دي ميت كلا كخيرون كان هذا جوجا إلهي وكاننا حبا هي إلا قرب استاجو ولو دعيو لنا لا شقي هذه إلهي مركا نقول فلان جديد نقول فلان إزدل نقول فلان فوضى نقول فلان رجال حمي نقول فلان دتك إنه الشباب يسوع إريانيا نقول فلان أبارهيو أيجنا دي أمن حميدان دتك qaybta uga amniga ma ogtahay 3 shay aweys oo waxa jira marba kala maarmi kareen waa ta koobaade amni haduusan sugnayn nolol ma jirayso oo dadku ma ganacsan karaan ma noolaan karaan dawladuna hadaysan heli karin dhaqaale ku filan oo amnigu ku sugto oo ciidamadeedii iyo mishaaraadkeedii waxay isaga bixiso hadaan la helin dawladnimadu kaamil ma noqonayso labadaas marka waxa uu dhaxay waxa la yiraahdo siyaasadda go'aanode gacan amniga ku hayn karto gacan dhaqaaliga ku hayn karto isu keeni karta dadka marka waa 3 dhardhaarood oo kala maarmeynin amnigi oo laga maarmeynin dhaqaaliga oo laga maarmeynin iyo siyaasad xasiloon inta isku hayn karta in la marka deegaankaas waxaad wada xoogaa 4 sano la soo dhaafay 5 sano baa iraahday xasilooni darri siyaasadeed badan baa ka jirtay marka waliba doorashadii hadda la soo dhaafay inta badan dadkeenu waa isqalbi taabteen wala way Soomaalida kor oo dhan baa ay nala qabtay haddana de way aragnimo noogu filaatay shalay waan soo dhaaftay berrito waxa naga horeeyay inay noo wanaagsanaadaan oo dawladnimo wanaagsan iyo dib u heshiisiin wanaagsan iyo dad is ogol reer koonfur galbeed Soomaaliya la noo muhiima taasana rajaynaa bi Ilaahi taala way aad iyo aad waa mahadsan waxaan ku dari lahayd oo gabagabadii aan joognaa wax kale ku dareyno waxaan ku dareynaa in dalkaasi doorasho ka dhacdo shacabka ay u diyaar garoobaan in maartay yani rejimka hadda jooga maartay yani meesha isbedel iyo waxay ka dhacaan oo nidaamkan iyo waxa sida u jiraan la bedelo amniga iyo wixii maartay dib loo soo celiyo dhaqaalihii la kobciyo siyaasad xasiloon iyo sida meesha ugu dhici lahaydna laga shaqeeyo guud ahaan shacabweynaha koonfur galbeedna maartay yani sida hadda maartay hooshooda walaanba ka sii shaqeeyaan sidii nidaamaadkaas iyo waxaas aan maartay u hirgelin lahayn hadda la yiraahdo way waxa ugu dambeeyay xildhibaan xasan maxamed guudow iyo sidoo kale martida waxa kamid ahaa wasiirkii hore warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed iyo maxamed ibraahim bilaal daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtiga aad ku bixiseen daawashada barnaamijkan martidan waxaan uga mahad celinayaa waqtiga ay ugu tala galeen ay ku bixiyeen in ay dooda nagala qayb galaan oo ay falanqeeyaan anigoo ah Aweys Xaaji Nuur Aweys ayaa idin la socodsiinayay inta aynu ku wada kulmi doono barnaamij kale oo kan lamid ah waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo